السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. dayax gacmeedku waa aalad loo diro hawada sare kaasoo ku wareega meerayaasha iyo xidigaha. Wuxuu dayax gacmeedku saamiyaa in la degi karo ama lagu noolaan karo meerayaasha hawada sare. Dayax gacmeedku wuxuu gaaraa meelo aan diyaarad ama wax la mid ah lagu gaari karin, waana aalada sahasha saadaalinta cimilada kala duwan. Alaab waxaad maqashaa in la sii saadaalin karo waxyaalaha qaar, khaasatan isbeddelka cimilada. Tusaale, intuusan dhicin dayax madoobaadka ama qorrax madoobaadka, waxaan ognahay in la sii sheego. Taasina ma ahan awood dadka qaar ay leeyihiin, laakiin waxaa sahlaya dayax gacmeedka, kaasoo saadaaliya ama keydiya wax walba oo hawada sare iyo oogada dhulka ka dhacay. Kaliya lama sheego inuu dhici rabo, xitaa waxaa la sii sheegaa inta saacadood ee uu soconayo dayax madoobaadku, waqtigu dhacayo iyo waqtigu dhamaanayo. Sidoo kale waxaad maqashaa meel hebel waxaa kusoo wajahan dabaylo wata duufaano, waxayna dhici doonaan bil hebel. Badanaa waxyaalahaas la sheegay waa ay dhacaan. Saadaalintaas kala duwan waxa ay sahlaysaa in laga sii gaashaanto masiibooyinkaasi waaweyn. Shaqooyinkaas oo idil waxaa qabta ama fududeeya dayax gacmeedka. Dayax gacmeedku sidoo kale waa aaladda keliya ay ku tiirsan tahay tiknoolajiyadda caalamka, la'aanteedna ay adkaanayso inay shaqayso tiknoolajiyaddu. Tusaale, hadalka aan ku hadlayno taleefanada isu gudbintiisa waxaa sahla dayax gacmeedka. Weli ma isweydiisay sidee isku maqlaan laba qof oo kala jooga laba qaaradood ama laba wadan ama laba magaalo? Maxaase sababaya inay ismaqlaan dad ku nool laba qaaradood? Waxaa sabab u ah dayax gacmeedka, kaasoo isku xiraya aaladaha ay ku wada hadlayaan. Sidoo kale internetka ma shaqayn lahayn dayax gacmeed la'aantiis. Dayax gacmeedku waxa uu muhiim u yahay dunida haatan. Markaan dib u eegno taariikhda dayax gacmeedkii ugu horreeyay oo dad samee ah waxaa la diray 4 Oktoobar 1957. Dalkii ugu horreeyay oo dirana wuxuu ahaa waddanka Ruushka oo xilligaas loo yaqaanay Midowga Soviet. Dayax gacmeedkaasi waxaa lagu magacaabi jiray Sputnik 1. barigaas maadaama uu socday dagaalkii qaboobaa ama wixii loo yaqaanay Cold War ee u dhaxeeyay dalka Mareykanka iyo waddanka Ruushka, kuna saleysnaa tartanka hawada sare iyo dhaqaalaha. Sidoo kale isagana waddanka Mareykanka ayaa diray dayax gacmeedkii labaad 31 January 1958, kaasoo lagu magacaabi jiray Explorer 1. Sidoo kale waxaa jira wadamo badan oo diray dayax gacmeedka sida Japan, China, India iyo wadamo kale oo fara badan. 20 December 2019 waddanka Ethiopia ayaa diray dayax gacmeedkoodii ugu horreeyay, kaasoo noqday dayax gacmeedkii 41aad ee qaaradda Afrika la diro. Fadlan haddii aad channelka ku cusub tahay, subscribe saar, taabana gambaleelka si uu kugu soo dhaco muuqaal walba aan soo dhigno. Mahadsanid.